agaasimi hore hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Ali Sanbaloolshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacday doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyay in dawladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas isla markaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga ka guuleystay Nuur Iidow Beyle wariyana Harun Macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka Muqdisho waxaana uu weydiiyay sida uu arko doorashadaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim. Harun waa mahadsantahay, waan ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad wareysan ka qaadaysay. Runtii waa run 28kii bishii January waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbanay ee baarlamaanka. dabcan dabeeciyadna anigu hadda siyaasadda ayaan ka shaqeeyaa. haddii meeshii xilkii dawladda ay magacaado laga qaaday meesha kale ii banaaday baarlamaanka siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay. bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo howlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inay tahay baarlamaanka awlan aan kamid ahaa. saas darteed ayaan ugu tartamay. waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kale kaa badiyey doorashadu see u dhacday ma ku qanacday? horta kuma faraxsani laakiin inaan aqbalo dabcan way tahay. runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgalayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood asaas ay u tahay. mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen. mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada way cagadiideen. sidan dareensanana faragelin ayaa dawladdu ku haysay. haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga qaaday. tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaa oon wacyi badan aan lehna waxa la isku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka badashay. marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo. maxaad ku cadaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysa? wax cadayna miyaad haysaa mise waa tuhun? wax tuhun leeraa ma jiraan oo dadkaana waa dad ehela waxba uma kala qarsana. waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto. marka wax oo loo qaatayna waa jiraan. marka yani dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fulin lahaa ama wax dooran lahaa si qeyru caadi loo kororsan karayo ama xoolo qeyru caadi oo wareeriye la siiyo waad garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas. marka waana la ogyahay qof kastaa og, ergadii og, odayaashii og, magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og, dadka tartamayaasha og, qof kastaa og in faragelintoos oo dawladda ay ku jirto. waa gartay dawladdii tan ka horreysana waxaa la lahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay. marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax cadayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto cadayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay Soomaali iyo ajaanibba ay qabeen. marka su-aashaan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan Harun, tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cilla ka hadlaynaysa ma jirto. aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado ana aan sayda la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan. laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina dee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adahayna ammaanka haysa ama hay-adahayna kale dawliga haysa ama hadda kasoo qaba madaxweynuhu safar ku tegay gobollo aad fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo dhagax dhigay oo mali halkaas milyan oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas cilmiga commitmentiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd. marka hadda waxaa la yidhi wax xarunimaysan qaadin kama daba yeeraan. qof tuun keliya ka qayl lahaa ma jiro. waxaana ergadii og, odayaashii og, lacagtii la baxshaa loogyahay, waqtigii la baxshaa loogyahay, evidences waa loogyahay, dadkii oo dhan hadda la keeni karaa qofkii qaataa oo kii baxshaa wax kasta waa loogyahay. waa gartay laakiin cid hadda oo meel cilla oo ka samaynaysa case ma jirto. laakiin adiga iyo dawladda waad iswadateen, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha rag saaxiibbaa isla soo shaqeeyey, isku dhow baad ahaydeen. xataa xilligii ay ololaha doorashada oo ku jira madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd. maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda? marmarka qaarkood dawladaha maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo qaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malaha
dad waxaa jira ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lagu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhow malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si qayr caadiga oo qarrimo loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonayninba dadka firfircoon oo siyaasadda saamaynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yacni faytarnimo aniga layga baqaayo waxtaas laakiin anigu hadda laba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba midaan dawladda ku caawiyo noqon lahaa midaan dalka ugu adeego noqon lahaa midaan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahaa mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaalamo raba horta ma noqday marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayi ilmo isma jecla waana isneceb yihiin amana istaqaanaan waanaba kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka uu dareema malaa kabiiradii ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ka soo weerarkaan si toos ugu lug lahaa kaas wuxuu ahaa agaasimiye hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey wuxuu ugu warramayey waryahayga haarun macruuf waa tahay maxamed oo dhinaca kaletana waxaa eedaasi kasoo yeertay cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe beeniyey nuur iidow beyle oo isagu jagadaasi ku guulaystay waryaheena jamaal axmed cusmaan ayuuna u warramay nuur. bismillahi rahmaani rahiim marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa bahda VOA-da arrintaas runtii doorashadaasi markii ay dhaceysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen markay dhacdana muraaqibiin goobjoogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo muxuu ahay warbaahinta caalamka oo life ah TV-ga qaranka oo life ah intaasba way joogeen meeshaas naftiisaana qiray walaalkay cabdullaahi sanbaloolshaana meesha ka sheegay inay si wanaagsan oo cadaalada doorashadaas u dhacday laakiin waraysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dawladda soomaaliya ayaa faragelin ku haysay oo arrintani si toosa adiga ay kuu taageertay marka ma jirtaa in kharashaad dawladda ay kugu taageerto oo doorashada aad kaga guulaysatay cabdullaahi sanbaloolshe runtii maya arrintaasi waa wax la dhoodhoobay wax ka jiraa ma jiraan aniga cabdullaahi sanbaloolshe waxaan nahay dad family ah muxuu kursiga uu ka wada dhexeeyo waxaa ku tartamaya labadeenna ma ahayn waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdullaahi cosoble waxaa kamid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yar yar oo hadda soo koraya oo aan muxuu weli masraxa soo gelin waxaa kamid ahaa cabdullaahi naftiisa waxaan hayna 5 nin iyo gabar marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii waxyaabaha kale ee sanbaloolshe oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa kamid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabay ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yiri dawladda ayaa ku wadatay bal arrintaa ka waran anigu dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa 5 bisha January ayaan ka imiday magaalada Istanbul dalka Turkiga markaasna waxaan bilaabay campaign doorashada waxaa qabsoontay 27kii bisha January campaignkaas waxaan waday 22 maalmood sanbaloolshe wuu joogay dalka qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasna isaga iyo nabadgelyadu way wada wadeen waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo transparency ah asaana goobjoog ka ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa marka arrintaasi waxaan isleeyahay waa muxuu ahaa waqti la jiidana ma jirin systemkaa jiitamay oo ahaa doorashadaani inay qabsoonto sanbaloolshe markii uu nabad sugidda tagay April 2017 ha yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo lalahaa dastuurka ma qabo in ayada lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo arrintaasaa yani guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada isku celceliyay muddo dheer taasaana keentay in muxuu ahaa kursigaas dib u dhaco laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dawladda federaalka Soomaaliya maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in sanbaloolshe uu hore ugu guulaystay doorashadii hore hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale runtii aniga waxaan ahay siyaasi dawladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo nuur cabdi ka ahaa wasiir mar labaad waxaan noqday xildhibaan 2012 isla kursigaana ku fadhiyey waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyey cabdullaahi sanbaloolshe oo ka horreeyay asaga marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balancega iyo kalaan balancega beesha gudaheeda ayaa si noqday
kabacdina aniga ma tartamin waa ka tagay laakiin waxaan ahay siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey horena ugu tartamay horena u hayay 2016 marka arrintaas waxaan filayaa ninkii ka sheegay aad iyo aad wuxuu raadinayaa dulduleelo mana jirtaan qabaa nuur iidow bayle oo u waramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan isagoo ka jawaabayay eed ka timid dhinaca cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.